مسؤولين كترسن maamulka degmada Baardheere ee gobolka Gadow ayaa kormeeray dhismaha wadada isku xirta magaalada iyo garoonka diyaaradaha ee degmadaasi. Umar Ciidruus Axmed ayaa qodobkan inoo faahfaahinaya. dhismaha wadadan isku xirta magaalada iyo garoonka diyaaradaha degmada Baardheere ee gobolka Gadow ayaa dhan 3 kiiloomitir 800 senti waxayna qayb ka tahay mashaariicda horumarineed ee lagu fulinayo degmada Baardheere ee gobolka Gadow. qayb ka mid ah wadadan ayaa sidoo kale laga dhisayaa buundooyin casri ah oo lagu talagalay meelaha togaga ee ku yaalo qayb ka mid ah wadadan. injineerka fulinaya dhismaha wadadan ayaa ka warbixiyay naqshada laga rabo dhismaha wadada iyo inta ay qaadanayso dhismaheeda. bismillaahir rahmaanir rahiim. halkan joognaa waxa weeye waa degmada waa gobolka Gadow magaalada Baardheere oo ka dhisano wado kamida mashaariicda horumarinta ee ka socota degmada sadarka saan wadadani waxa weeyaan waa wado 3 kiiloomitir iyo 800 kiiloomitir iyo 800 mitir waxay ka soo bilaabantay airportka ilaa iyo magaalada gudaheega ayay galaysaa. wadadu waxay ka kooban tahay 7 mitir oo ballaceega oo ah 2 lane 3 iyo badh oo baabuurtu mari doonaan iyo 2 mitir oo geesaha ka raaci doona oo biyo shubka ciida la saarayana waxa weeyaan 30 senti average thickness 30 senti ayaa la saari doonaa insha Allah. guud ahaan markaa wadadan taasi ka kooban tahay. gudoomiye ku-xigeenka degmada Baardheere Ismaaciil Shaqabdi Qorax Koofi oo ka hadlay goobta dhismaha ayaa sheegay in ay ka mid tahay dhismaha wadadan isku xirta garoonka diyaaradaha Baardheere iyo sidoo kale magaalada horumarada ay ku tallaabsanayso degmada Baardheere ee gobolka Gadow. salaatu wasalaam ala ashrafil mursaliin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa ba'd. ilaahay mahad maanta waxaan soo booqanay hawsha ka socota wadada isku xirta eelboorka iyo magaalada. runtii waa arrin farxad leh waa arrin aad guul u leh in badan baan sugayno wadadan dhismaheeda iyo shaqadeeda iyo mashaariicdeeda in la fuliyo laakiin hadda ilaahay wuxuu noo suurtageliyay in shaqada ayada ahayd la galay hadda ay meel fiican maraysa. wadadan waa wada muhiim ah waa wadada isku xirta buundada ilaa iyo eelboorka sidoo kale buundada meesha la yiraahdo ilaa iyo Baraxow ayadana waa lagu darayaa markii la isku geeyo 4 kiiloomitir iyo bar bay noqonaysaa qaybta Baraxow iyo qaybtan markii la isku daro. marka waxaan leenahay waa horumar iyo farxad iyo guul u soo hoyatay Baardheere. sida ogtihiin waxa weeyaan Baardheere waxa ay haysatay kooxaha al-shabaab khawaarijta muddo 8 sano ah haba yara wax horumar ah oo ay ka suubiyeen ma jirin xitaa hal dhisma hal wada hal buunda hal xaba kama jirin. ilaahay fadligii intaan nimid barnaamijkan waxaa naga caawiyay hay'adda TIS Plus ya shaqada nala fulinaysa oo inta badan goobaha dawladda iyo meelaha bulshada muhiim ku ah shaqo ka qabata. waa barnaamij lagu kaaba meelaha laga qabtay yani cadawga in ummadda lagu horumariyo lagu talagalay. marka runtii mana aan hadda barnaamijkan kaliya hadda waxa ayada hay'addaas ka wada community center-ka rotation hadda shaqadiisa way socotaa. waxay maraysaa 3 kameel 2 meelood bay hadda maraysaa wadadina ayadana waa aragtaan hadda way noo socotaa insha Allah ta'ala. garoonka laftiisa gudihiisa waa la dhisi doonaa oo shaqadiisa waa la gali doonaa hadda wadada waa lagu jiraa laakiin asagana waa la galayaa. muddooyinkii ugu dambeeyay degmada Baardheere ee gobolka Gadow ayaa laga fulinayay mashaariic horumarineed oo lagu soo celinayo bilicda deegaanka iyo sare u qaadida horumarka degmada Baardheere ee gobolka Gadow. Umar Ciidruus Axmed raadiyaha TV-ga dawladda Jubbaland Baardheere.